السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waan idin salaamay khiyaarta dhammaantiisa dunantihiin meel kastood kala joogtaan dunida daafiyada halkaad kala socotaan waa channelka ladan cabdu fadlan dhageystow haddii aad igu cusub tahay isku day channelkeena inaad subscribe gareyso gambaleelkan on ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oo soo share gareyna biidnillah. haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogistaada qiimeyntaada quruxda badan fadlan commentiga waa ii muhiim waayo waa dhiirigelin like share hayga iloowin insha allah la wadaag walaalahaaga kale si ay naga faa'iideystaan badanaa waxaan kusoo gudbiyaa meeshan muuqaalo waxtar leh aakhiradaadana wax kaaga faa'iidin doona insha allah. dhiirigelintu waa dhankeena hayga baqiilin walaasha ayaan ahay fadlan isku day inaad channelka sare u qaado mahadsanid intaasna waa codsi ma ahan xoog insha allah. soo dhawaada markale maanta waxaan idin wadaa sidaad horeba iiga barateen inaan idin soo gudbiyo qisooyinka qisasu dikr. maanta waxaan idin wadaa qiso kale oo qiimaheeda wadata fadlan dhageyso walaalkaana u sheer garee. qisadan run ahaantii waxaan markii aan dhageystay run ahaantii ama aan maqlayba waxaan jeclaystay inaan idinkana aad wax ka faa'iidaan aan idinla soo wadaago. qisadan waxa ay leedahay waxaan yacni soo tabiyey ama soo wariyey nin ka mid ah culammada Soomaalida yacni ma ahan nin oo maxaa la dhahayay yacni waxa waye nin mas-uul ah waa nin culammada Soomaaliyeed ka mid ah. wuxuu dhahay nin aanu saaxiibo ahayn ayaa maalin waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday asiga oo goobtiisa shaqo iska joogo oo shaqaysanayo ayaa waxaa ku dhacay wadna xanuun ama istaaga ayuu ka dhacay oo wadnihii ayaa laga qabtay waa la qaaday kooma ayuu galay muddo dheer kadib markii uu soo naaxay waxaa la dhahay dhaqaatiirtii ay u sheegeen in uu qalliin yahay wadnihiisana ay cilad uu qabo qalliin weliba degdeg ah 5 bari kadib in la qali doono hadduu ilaahay idmo. ninkii wuxuu dhahay aad ayaan u naxay waayo wuxuu dhahay markii intaanan istaaga ka dhicin ka hor waan caafimaad qabay cilad iskumaanan ogeyn. wuxuu dhahay nin waxaan ahay iska shaqaysanayo reerkiisa maamulanayo alxamdulilah qadar ayaa igu dhacday ayuu dhahay istaaga ayaan ka dhacay koomaan galay dhaqaatiirtii waxay igu dhaheen muddo dheer kadib yacni markii aan soo naaxay waxay igu dhaheen 5 bari kadib ama gudahooda waa in operation degdeg ah lagugu sameeyaa. wuxuu dhahay anigii waa naxay haddana wuxuu dhahay qof islaam ah qanaacada rabbi waa ku qancay oo wuxuu dhahay waan iska sabray waan soo baxay ayuu dhahay gurigeyga ayaan imaaday. wuxuu dhahay waxaan yacni niyadeyda kusoo dhacay oo ilaahay niyadeyda uu ii soo geliyey yacni in aan aqriyo salliga nabiga. markastana isbitaalka waan yacni waa la fiirinaya waan ku leeyahay laakiin waxaa lagu dhahay 5 bari gudahooda waa inaad kusoo xarootaa oo aad iskugu diyaarisaa qalliin. wuxuu dhahay alxamdulilah qalliinkeygii ayaa soo dhawaaday 3 maalin u dambeysay isbitaalka ayaan iska galo dhahay waayo operation ayaa la ii saxiixayaa. wuxuu dhahay waxaa dhacday in aan bilaabo salliga nabiga waxaan aqriyay wuxuu dhahay afkeyga marna kamaana qaadin. wuxuu dhahay waan hurdo dhahay hurdo yar ayaa i qabatay waan hurday waxaa ii imaaday qof aanan garanaynin oo biyo galaas ku wado biyihii ayuu i waraabiyey markuu i waraabiyey wuxuuna ii raaciyey ogow xanuun dambo yacni xanuun intaan ayaa kugu eg yacni dib dambe uma xanuunsanaysid oo yacni xanuunkan halista ee waad ka bogsanaysaa camal ayaa lagu dhahay. alxamdulilah wuxuu dhahay aniga salligeyga ayaan sii waday maalintii u dambeysay oo qalliinkeyga la geli rabay ayaa waxaa jirta dhaqaatiirtu way imaanayaan qofka dhiiggiisa iyo waxyaabihiisa cabirayaan. dhaqaatiirtii ayaa ii yimaadeen oo qalliinka u diyaarka u ahay waa la wuxuu dhahay jagab ayaa lagu sameeyey dhiiggeygii wixii la baaray dhakhtarkii madaxa ayuu gacanta saartay wuxuu dhahay ninka aad leedihiin ha la qalo see loo qalayaa ninkan waaba nin 100% aniga ayuu iga caafimaad badan yahay weligiisna meel lagama qabanin waa sidee waxaan foomkan iyo waxaan aad wadin maxaa waay. anigii wuxuu dhahay markii lagu dhawaado caafimaad qabtaa oo qalliin uma baahnid run ahaantii wuxuu dhahay waan yaabay haddana waxaan xasuustay bifadlillaah salliga nabiga in uu ka dambeeyay waxaan oo dhan yacni salliga nabiga aan aqriyay oo aan badiyay in uu ilaahay iigu naxariistay biyihii habeenkii riyada lagu siinayna ilaahay uu iiga dhaqay xanuunkii oo dhan oo aan ku caafimaaday. alxamdulilah wuxuu dhahay ilaa al'aana la taagan yahay salliga ma joojinin xataa si kan yar ma dhaafiyuu dhahay
mar walba waan aqriyaa ilaa intaan seexanayo mar walba waan aqriyaa. Marka waxaan qisadan usoo qaadanay qisada muhiimkeeda waxaa waaye salliga nabiga inaan aqrino. Sirta nolosha waa salliga nabiga. Haddii aad rabtid inaad farxad ku noolaato, haddii aad rabtid inaad deganaansho dareento, haddii aad rabtid in aad adduunka horumar ka sameyso, haddii aad rabtid in ay caruurtaada baari ku noqdaan, haddii aad rabtid in aad Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam maalintii intaasoo mar magacaaga loo soo sheego oo la dhaho waxaa u qaabilsan waxaa la malaa'ig ayaa u diyaarsan in markii aad ku salido magacaaga ay inta aad ku saliday intay qaadaan ay Nabi Maxamed qabrigiisa ugu geeyaan oo ay dhahaan hebel ama heblaayo intaasoo jeer ayay kugu soo saliday. Ka waran haddii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam maalintii 100 jeer ka badan magacaaga loo geynayo iyo inta aad ku saliday oo la leeyahay hebel ama heblaayo ayaa kugu soo saliday. Ka waran farxad ka weyn ma jirto. Aakhirana insha Allah Ilaahay subxaanahu wa tacaala inta akhriday waxaan aga baryaa in uu jannadiisa ku casumo weliba jannooyinka midda ugu sarreyso firdaws al-aclaa. Marka qisada gunaanadkeeda ama gabagabadeeda waxaa waaye inaan aqrino salliga nabiga. Ani adigaba Ilaahay ha noo fududeeyo salliga nabiga insha Allah. Qisadan waa qiso muhiim ah. Fadlan la wadaag walaalahaaga. Sirta nolosha waa salliga nabiga. Aan ku salino xabiibkeena Muhammad sallallahu calayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim calaa nabiyina Muhammad wa calaa aali Muhammad kama sallayta calaa Ibraahiima wa calaa aali Ibraahiima innaka xamiidul majiid. Fadlan la wadaag walaalahaaga si ay ga faa'iidaystaan qisadan. Qisooyinka aan soo gudbino run ahaantii waa qisooyin waxtar leh. Qisooyinkeena waa qisooyin waxtar leh, waa qisasu dikr. La wadaag walaalahaaga kale khayrka kala baqiilin u sheer garay insha Allah. Adigna ajri xasanad Allah ka siiyo. Waxaan idinka tagayaa tan kulanta dambe qiso kale oo qurux badan oo qiimaheeda wadato insha Allah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.